gabar ayaa waxaa eryanaya koox tuugo ah. Waxay ku qaylinayaan qabtaa tuugta. Nin maraya ayaa arkay arrintaas. Isla markiiba wuu farageliyaa oo gabadhii joojiyaa. Markii la kaxaynayo ayay si caro leh u tiri ha ku faanin geesinimadaada. Waxaad gacan gelisay dad xun gabar aan waxba galabsan oo u baahnayd caawimaad. Laakiin ninku arrintaas si weyn uma qaato. Wuxuu yidhi waxaad si cad wax u hadday haddana waxaad u hadlaysaa sidii qof xaq ah. Laakiin dhowr tallaabo kadib wuxuu arkay dad badan oo isugu soo baxay meel hore. Waxaa la ogaaday in qof addoommo iibinayo. Markuu u dhowaaday wuu istaagay isagoo yaaban. Miyaanay ahayn gabadhii uu qabtay? Markaas ayuu fahmay inuu caawiyey dad khaldan. Isagoo qoomamaysan wuxuu isticmaalay dhammaan lacagtiisii si uu gabadha dib ugu iibsado oo uu siiyo xorriyad. Laakiin gabadhu waxay sheegtay inaysan lahayn qoys dambe. Haddii keligeed la sii daayo kooxdaas ayaa mar kale qaban doonta. Isagoo aan haysan doorasho kale ninku wuxuu gabadhii geeyey gurigiisa. Laakiin qoyskoodu aad bay u faqiir yihiin si dhib leh ayayna u nool yihiin. Walaalkiis weyn oo caajis ah ayaa ku yidhi maalin dhan waad maqnayd oo wax lacag ah ma keenin haddana waxaad keentay qof kale oo wax cuna. Ninku doorasho kale ma haysto markaas ayuu qaataa faas oo u baxaa inuu qoryo jaro si uu lacag u helo. Inta uusan bixin gabadhu si naxariis leh ayay cunto ugu diyaarisay. Intuu jidka ku jiray baqal iyo isaga oo socda baqal weyn gorgor ayaa cirka ka duulay. Wuxuu si dhaqso leh ula dhuuntay dameerkiisa. Wuxuu arkay gorgorkii oo geed ku degay dabadeedna isu beddelay qiiq cagaaran oo hawada ku baahay. Isagoo weli la yaaban koox tuugo ah ayaa si xawaare leh u soo gaartay. Waxay istaageen buur hortooda. Hogaamiyahooda ayaa ku dhawaaqay erey sixir ah, buurtiina si tartiib ah ayay u furantay. Makhluuq cabsi leh ayaa ka soo baxay godka. Hogaamiyuhu wuxuu amray 2 nin inay quudiyaan makhluuqa. 2dii nin cabsi darteed ayay dhulka ku dhaceen, laakiin qof kale oo kooxda ka mid ah ayaa qosol celin waayey. Hogaamiyuhu si degdeg ah ayuu u xanaaqay. Ninkii ayaa baryay in la cafiyo, laakiin hogaamiyuhu naxariis ma uusan muujin. Wuxuu ku tuuray dhinac makhluuqiina hal qaniinyo ayuu ku liqay. Kadib tuugadii godka ayay galeen makhluuqiina ma joojin. Ninku wuxuu is yidhi waa inuu jiro sir ku qarsoon godkan. Markii ay tuugadu dib uga soo baxeen, hogaamiyuhu mar kale ayuu ku dhawaaqay ereygii, godkiina wuu xirmay. Kadibna way tageen. Markii ay tageen ninku wuxuu go'aansaday inuu tijaabiyo. Wuxuu istaagay albaabka godka hortiisa wuxuuna ku celiyey ereygii. Isla markiiba godkii wuu furmay. Laakiin makhluuqu wuu soo baxay. Wuxuu eegay waxa uu haysto wax uu siiyo ma jirin. Markaas ayuu eegay dameerkii wuxuuna ka qaaday cawskii uu waday. Markuu cawskii siiyey makhluuqu wuu cunay. Sida la yiraahdo qofku wuu jilcaa marka wax la siiyo. Markaas ninku dameerkii la galay godka makhluuqiina ma joojin. Gudaha markuu galay waxa uu arkay wax yaab leh, hanti badan oo dahab iyo lacag ah. Aad buu u farxay. Wuxuu buuxiyey jawaano hanti ah si uu guriga u geeyo. Xitaa wuxuu doortay silsilad qurux badan oo uu u talagalay gabadha. Markuu guriga yimid isagoo faraxsan ayuu yidhi mar dambe gaajo ma dareemi doono. Fiiri waxa aan keenay. Markuu dahabkii dhulka ku shubay walaalkiis aad buu ula yaabay. Wuxuu weydiiyey meesha uu ka helay hantidaas. Si uu walaalkiis u ilaaliyo ninku ma rabin inuu sheego. Wuxuu yidhi uma baahnid inaad ogaato meesha ay ka timid. Hantidan ayaa nagu filan inaan si xor ah u noolaano. Keliya ku raaxayso. Laakiin walaalkiis isla markiiba wuu beddelay wejigiisa oo ku adkaystay ii sheeg hadda. Aniguna waan tegayaa si aan u helo hanti. Laakiin waagu uu baryayaa. Ninku wuxuu xusuustay digniintii Sauron markii uu adduunkan soo galay. Markuu baxayay walaalkiis ayaa qabtay oo diiday inuu sii daayo. Albaabkii wakhtiga ayaa ku dhowaa inuu xirmo laakiin walaalkiis si adag ayuu u hayay. Daqiiqadii ugu dambaysay ninku wuu iska riixay walaalkiis wuxuuna ku booday xooggiisa oo ninka yar wax kale ma uusan haysan ee wuxuu u sheegay meesha iyo dhammaan taxadarada. Markii uu dayka gaaray godkii wuxuu ilaaway sida loo furo. Nasiib wanaag walaalkiis yar ayaa warqad ugu qoray ereyadii lagu furayay laguna xirayay. Wuxuu ku dhawaaqay ereyadii godkiina wuu furmay. Laakiin waxaa ka soo baxay makhluuq. Nasiib wanaag dayka wuu diyaar garoobay. Walaalkiis ayaa u sheegay in haddii uu wax siiyo makhluuqa uu si nabad ah ku geli karo. Wuxuu tuuray karootada kadibna si taxadar leh ayuu gudaha u galay. Markuu arkay dahab iyo lacag badan aad buu u farxay. Wuxuu ku fikiray inuu dhammaan qaato oo ka taajiro walaalkiis. Farxaddii awgeed ayuu ku mashquulay ilaa uu hurdo ku dhacay. Markuu toosay wuxuu garwaaqsaday inuu baxo ka hor inta aysan tuugadu imaan. Si degdeg ah ayuu qasnadihii ugu guray jawaano, balse isla markaas koox tuugo ah ayaa hore u timid bannaanka godka. Markii hogaamiyihii arkay digniinta gorgorka wuxuu garwaaqsaday in qof ku jiro godka. Isla markiiba cadho ayuu la qarxay wuxuuna ku qayliyey yaa ku dhiiraday inuu halkan yimaado oo xoolahayga xado. Gudaha godka dayka wuxuu jiidayay dhowr jawaan oo dahab ah. Markii uu isku dayay inuu baxo dhowr jeer ayuu qayliyey balse albaabkii ma furmin. Farxaddii iyo degdegii awgeed wuxuu iloobay ereyadii lagu furi jiray godka. Wuxuu xusuustay in warqad ay ku qornaayeen ereyada furitaanka balse meelna kama uusan helin. Markaas ayuu xasuustay inuu warqaddii ku tuuray cuntadii uu siiyey makhluuqa. Hadda wuxuu noqday mid godoonsan oo aan garanayn sida uu uga bixi lahaa. Cabsi darteed ayuu erayo iska yidhi si aan kala sooc lahayn. Nasiib wanaag albaabkii ayaa furmay. Laakiin markii uu u malaynayay inuu baxsan karo koox tuugo ah oo cadhaysan ayaa gudaha u soo yaacday. Dayka isla markiiba jilbaha ayuu dhulka dhigay wuxuuna baryay hogaamiyaha inuu u naxariisto isagoo ballan qaaday inuusan waxba qaadan doonin. Hase yeeshee tuugadii cadhootay waxba kama dhegaysan qof kasta oo isku daya inuu xado qasnadooda hal natiijo ayuu la kulmaa. Sidaas ayay ku dileen jidhkiisana 3 qaybood ayay ka dhigeen.
habeenkii dambe walaalkii yaraa markuu arkay in walaalkiis weyn uusan soo noqon wuu walwalay wuxuuna go'aansaday inuu raadiyo. Markuu yimid godka oo albaabku furmay wax makhluuq ah kama soo bixin taas oo shaki gelisay. Markuu gudaha galay wuxuu arkay jidhkii walaalkiis wuxuuna la murugooday si aad ah. Laakiin isla markiiba laba tuug ayaa soo baxay. Waxay garteen in Dayka uusan keligiis ahayn. Iyagoo aan filayn qof kale ayay isku dayeen inay qabtaan balse ninkii yaraa oo cadho buuxisay ayaa si degdeg ah uga adkaaday labadii tuug. Markii uu guriga keenay jidhkii walaalkiis wuxuu dareemay dembi weyn isagoo u haysta in sababta dhimashada ay isaga tahay. Wuxuu go'aansaday inuu si sharaf leh u aaso. Laakiin jidhku wuxuu ahaa 3 qaybood mana habboonayn in sidaas lagu aaso. Arrintaas ayaa ku noqotay mid ku adag. Markaas gabadhii ayaa xasuusatay tolaha magaalada waxayna la timid fikrad. Waxay u tagtay ninkii tolaha ahaa waxayna weydiisay inuu wax kasta toli karo. Ninkii odayga ahaa si kalsooni leh ayuu u yidhi waxaan toli karaa samada iyo dhulka xitaa hawada u dhaxaysa wax aanan toli karin ma jiro. Gabadhii waxay u ballanqaaday jawaan dahab ah haddii uu gurigeeda yimaado oo uu wax tolo. Odaygii si farxad leh ayuu u aqbalay balse shuruud ahayd inuu sida ay sheegto sameeyo. Waxay indhaha ka daboolay si uusan jidka u xasuusan mar kasta oo ay leexdaan way wareejinaysay. Ugu dambayn waxay gaareen guriga. Markii uu arkay jidka dhulka yaal wuu naxay wuxuuna garwaaqsaday inay rabaan inuu jid tolo. Inkastoo uu argagaxay lacagta darteed ayuu oggolaaday wuxuuna ballanqaaday inuusan cidna u sheegi doonin. Markii uu dhameeyey gabadhii mar kale ayay indhaha ka daboolay oo dib ugu celisay. Markii tuugadii ku soo noqdeen godka waxay heleen in jidkii Dayka la waayey 2 nin oo ka mid ahna la dilay. Waxay ogaadeen in qof kale uu sirta og yahay. Hogaamiyuhu wuxuu amray in magaalada la baadho lana ogaado guriga dhawaan sameeyey gaar ahaan mid jid 3 qaybood ah lahaa. Laakiin wax raad ah lama helin. Markay ku sigteen inay ka quustaan oday sakhraansan ayaa soo maray isagoo isku faanaya inuu yahay nin xirfad leh oo aan keliya dhar tolin balse xitaa jid binyaadan ah isku toli kara. Markii ay tuugadii maqleen si degdeg ah ayay ugu ordeen iyagoo hubay inuu wax ka og yahay. Koox tuugo ah ayaa habeenkii qabriga ka qoday meyd cusub oo la aasay. Markii hogaamiyahoodu arkay sida uu ekaa ninka dhintay isla markiiba wuxuu amar ku bixiyey in la dilo dhammaan qoyskiisa sababtoo ah labada walaal ayaa midba midka kale uga dambeeyey raadinta khasnadiisa. Inkastoo Dayka ay tuugadu isla goobta ku dileen walaalkiis ka yar nasiib ayuu yeeshay wuuna baxsaday xitaa wuxuu noqday nin taajir ah. Tuugadu aad bay u caroodeen waxayna ku dhaarteen inay soo qabtaan qofkii wax ka xaday. Laakiin inkastoo ay muddo dheer wax weydiinayeen waxba ma helin. Ugu dambayn nin tolay ah oo meydka ku tolay guriga ninka ayaa si kama ah wax u sheegay isagoo sakhraansan waxaana maqlay 2 tuug. Waxay ku qasbeen odaygii inuu u sheego meesha uu ninku degan yahay isaguna cabsi darteed wuu aqbalay. Maadaama markii hore indhaha laga xiray wuxuu ku yiri tuugada inay indhaha ka xiraan mar kale wuxuuna adeegsaday xusuustiisa si uu u helo guriga. Mid ka mid ah tuugada ayaa calaamad ku sameeyey albaabka kadibna u noqday hogaamiyaha balse gabadh ayaa aragtay isaga. Markii ay aragtay calaamada albaabka gurigeeda waxay fahamtay in odaygii uu khiyaamay. Si ay tuugada u wareeriso waxay isla calaamadaas ku samaysay albaab kasta oo xaafadda ah. Markii tuugadii soo noqdeen iyagoo wata hogaamiyahoodii waxay arkeen in albaab kasta uu leeyahay calaamad isku mid ah sidaas darteed way wareereen hogaamiyuhuna si adag ayuu u canaantay. Hogaamiyuhu wuxuu ku amray inay odaygii soo celiyaan balse waxay sheegeen inay hore u dileen. Isagoo aad u xanaaqsan ayuu qorshe kale sameeyey. Waxay mar kale qodeen qabriga waxayna ogaadeen magaca iyo meesha uu degan yahay walaalka yar. Habeenkaas ayay go'aansadeen inay baabiyaan qoyskiisa oo dhan balse si aysan buuq u dhalin waxay isu ekaysiiyeen ganacsato waxayna ragga ku qariyeen foostooyin saliid ah oo gaari lagu saaray. Markii ay guriga yimaadeen hogaamiyuhu wuxuu sheegay inuu saaxiib la ahaa Dayka isla markaana uu doonayo inuu ugu mahadceliyo wanaaggii uu sameeyey isagoo keenay foostooyin saliid ah. Ninkii guriga lahaa si diiran ayuu u soo dhaweeyey wuxuuna amar ku bixiyey in foostooyinka la geliyo bakhaarka. Intii gabadhu cuntada diyaarinaysay mid ka mid ah adeegayaashu wuxuu sheegay in jikada saliidu ka dhamaatay. Gabadhu waxay tagtay bakhaarka si ay u soo qaado markaas ayay maqashay cod ka imaanaya foosto dhexdeeda oo leh ma la gaaray waqtigii aan weerari lahayn. Iyadoo aad u naxsan ayay iska aamustay kadibna si degan ayay codkii hogaamiyaha ku dayatay oo ku tiri weli maya. Kadib waxay u sheegtay ninkii guriga lahaa qorshaha tuugada. Ninkii ayaa fikrad keenay. Wuxuu diyaariyey bandhig hees iyo ciyaar ah si uu u mashquuliyo hogaamiyaha halka gabadha iyo 2 adeegayaal ay jikada ku kululeeyeen saliid aad u badan. Kadib waxay saliidii karkaraysay ku shubeen foostooyinka iyagoo ka takhalusay tuugadii ku jiray mid. Ugu dambayn waxaa haray hogaamiyihii. Habeen dambe ayuu tegay bakhaarka si uu u waco raggiisa balse wax jawaab ah ma helin. Markii uu furay foosto wuxuu ogaaday in raggiisii la baabiyey. Aad ayuu u xanaaqay. Isla markaas ninkii guriga lahaa iyo shaqaalihiisii ayaa yimid. Hogaamiyihii wuxuu isku dayay inuu dagaalamo isagoo mindi la soo baxay balse ma uusan la tartami karin si degdeg ah ayaa looga adkaaday. Ugu dambayn caqli iyo geesinimo ayay ku jabiyeen dhammaan tuugadii waxayna ku noolaadeen nolol farxad leh.